sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada ay iiraan ugu soo riday gantaalada saldhigyada maraykanka ee ciraaq ku yaalla ay ahayd inay ciidan ku khaarajiyaan askarta halkaasi ku sugnayd, halka uu hore maamulka Donald Trump sheegay inay Iiraan si ulakac ah aanay cidna wax u yeelin oo ay ujeeddadeedu ahayd baalaxooftayn. sarkaalkaasi ayaa yidhi markaan eega khibradda aan u leeyahay gantaalada xerada ciidamada halka ay gantaaladu ku soo dhaceen aad ayay ugu dhoweyd bakhaarada ay rasaasta iyo hubku yaallaan. ujeeddada iiraanna waxay ahayd inay waxdisho khasaarena gaadhsiisa xerada iyo gaadiidka ay diyaaraduhu ku jiraan ee yaallaa. sarkaalkan oo la yidhahdo masar mulla ayaa sheegay inay badbaadiyeen ciidamada maraykanka iyo ciraaqiyiintaba qalabka ka diga weerarada iyo nidaamka isdifaaca hore. dowladda maraykanka ayaa qiimeyn ay ku samaysay weerarkii iiraan ku sheegtay inaanay iiraan doonayn inay weerarkooda cidi ku dhimato, iyagoo bay yidhahdeen ka cabsi qaba argoosashada maraykanka. miller waxa uu isna sheegay inaan iminka la qiyaasi karin mar kale ee iiraan weeraro kale soo qaadi doonto. xogayaha difaaca ee maraykanka mark esper ayaa xaqiijiyey in iiraan soo gantay 16 gantaal, 12 ka mid ahina ay ku dhaceen xerada al asad, halka midna uu ku dhacay meel ka baxsan saldhigga Erbil. 4 gantaalla ay hawada ku burbureen. toddobaadkan xiisadda u dhaxaysa maraykanka iyo iiraan ayaa waxay ahayd mid sarraysa. jimcihii ayaa maraykanku duqeyn ku dilay jenaraal qaasim suleymaani oo ciidanka xoogga dalka iiraan ka tirsanaa. iiraan ayaa iyaduna talaadadii gantaala la dhacday saldhigyo ciidanku maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq, inkasta oo wax khasaare ahi aanu dhicin. intaas kadib madaxda labada dhinacba hadal dabacsan ayay ku hadlayeen. haddaba arrintaasi ma muujinaysaa in dagaal aanay doonaynin? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay mustafa maxamuud cabdilaahi al khaliili oo siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda new generation ee magaalada hargeysa. intaanan falanqayntaba gelin tallaabooyinka ay qaadayaan ba ayna tusaya inay labaduba diyaar u ahayn inay dagaal qaadaan labada dhinacba, because marka la eego dal kasta iyo qarnigan lagu jiro ina suuragal ahayn maadaamay hubab waaweynna haystaan inay dagaal toos u qaadaan amba ay labaduba si toosa isku duuqeeyaan. oo markaa iiraan waxaan u malaynayaa tallaabada maadaama sheegtay inay tahay tallaabada kaga eg tahay inay suuragal ahayn inay dagaal daba qaado, maadaama cadowgeedu uu ku fara badan yahay gobolka, israa'iil ay joogto, sacuudigu joogo iyo dalalkii kaleba ay wada joogaan. markaa ma awoodi karaysa inay dagaal toosa la gasho maraykanka laftiisuna isagoo eegaya danaha bariga dhexe suuragal maaha isaguna inuu dagaal toosa uu ku qaado iiraan, laakiin in xaalad diblomaasiyad lagu dabaalaa laga yaabaa. kolley waa lasoo kala dhex geli doonaa kolley insha allahu tacaala. markaa suuragal maaha wakhtigan iminka taagan in dagaal fool labadooda ma awoodaan, mana jecla. Trump wuxuu dhowr jeer sheegay in Iiraan uu tallaabo military ka qaadayo haddii ay far u dhaqaajiso danaha Maraykanka. dad badani waxay filayeen in Maraykanku uu isna duqeyn doono Iiraan, balse taasi ma dhicin. maxaa bedelay ayay kula tahay mowqifkii Trump iyo Maraykanka? waxaa bedelay tallaabada Iiraan qaaday oo noqday midaan ku kalifayn Maraykanku inuu tallaabo askariya oo tallaabo ciidan uu ka qaado dalka Iiraan. waxaa yeelay Iiraan dowladda Maraykanka waxay filaysay say u hadlayeen madaxda ugu sarreeya dalka Iiraan in tallaabo military adag ay ka qaadi karaan xarumaha ciidamada Maraykanka ee markaa Allahumma salli ala ahad bariga dhexe. laakiin maadaama Iiraan ayna tallaabadii saxda ahayd ayna qaadin oo masaaliskan ay riday amba gantaalaha ridayna u ekayd mid ay ku dejinayso ummadeeda, markaa Trumpna ma qaadayo. maxaa yeelay jawaabtay bixiyeen oo ah midaan cid Maraykan ay waxba ku noqon, burburna u geysan dhammaan xarumihii Maraykanku ay ku lahaayeen bariga dhexe. taasaa keentay markaa Trumpna uu dib ballanqaadkiisii uu dib u dhigo oo Allahumma salli ala ahad jawaabtan degdega ah ee cunaqabataynta u adeegsado. mar haddii labada dhinacba ay u muuqdaan in dagaal aanay doonaynin, ma jirtaa fursad ah in ay wada hadlaan? way iman doontaa kolley iminka maadaama ummadii Iiraan bulshadeedii dowladdii Iiraan ay dejisay oo ay ku dejisay missileska ay u dirtay xarumihii ciidanka Maraykanka. xal uu iman karaa oo dalal kale baa jiray oo heshiiskii bariga nuclear-kana ka qayb ahaa oo Jarmalka Ingiriisku ka mid yahay, Ruushka quwadaha way soo dhex geli doonaan. dowladda Carabeed baa siday dowladda Iiraan ay sheegaysay iyaguna ka codsaday in diblomaasiyad lagu dhameeyo. kolley wada hadal wuu iman doonaa, xaaladuna sidan dagaal Allahumma salli ala marnaba kusoo dhicmaan maskaxda madaxdaas waynan arkaynaa insha Allah taala. kolley wada hadallo wuu iman doonaa arrinkan iyo apology laga bixiyo, tana way iman doontaa insha Allah taala sida la filayo. marka laga soo tago Iiraan inay ku hanjabtay in ay Maraykanka ay jawaab ka siin doonto dilkii Generaal Qaasim Suleymaani, waxyaabaha kale ee ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa inay doonayaan in Maraykanku mandiqada bariga dhexe isaga huleelo.
marka ma la dhihi karaa tallaabada xigta Iiraan oo hartay waa inay Mareykanka ku qasbaan inuu ka baxo bariga dhexe taa way isticmaali kartaa dowladda Iiraan waxay awood u leedahay maanta gobolkan inay dalal fara badan ay isticmaasho oo ay ka mid tahay dalka Ciraaq oo ay ka mid tahay dalal fara badan oo saameyn fara badan ku leeyahay dadka madhab ahaan diintooda aaminsan shiicada farqadooda amba ay siyaasad fara badan ku leeyihiin laakiin kulay u malayn maayo dalalkaas laftigooda inay ka saari karaan Mareykanka ciidamada ka jooga halka amba saameyn weyn ciidamada jooga halkaas ay ku yeelan doonto Iiraan inay saarto sababta jawaabtii madaxweyne Trump in arkeenay uu ka siiyay Ciraaq baarlamankeedii markii uu go'aansaday maalintii dhaweyd inay ka baxaan inuu cunaqabateyn adag u saari doono marka dal ku degdegi doona iyo Iiraan saameyn adag ku yeelan doonto bixitaanka ciidamada Mareykanka iyagoo iska baxa mooyaane mandaqadaas ma aha mid dhici karaysa Ciraaq waxay laftirkeeda hadda u muuqataa in Iiraan iyo Mareykanka ay gudaha wadankeeda ay ku dagaalamayaan iyaguna ay yihiin dhibanayaal aan labadii dhinacna hadda aanan qayb ka ahayn maxaa Ciraaq la gudbay Ciraaq horta laba daran mid dooro haddii ay Iiraan dooratana Mareykanka wuxuu madaxweynuhu Trump uu sheegay wuxuu saari doonaa cunaqabateyn aad u adag oo inuu weliba ka kabsan karayn Mareykanka wax badan buu ka caawiyaa Ciraaq militariga ka caawiyaa dhaqaalaha ka caawiyaa siyaasadda ka caawiyaa garab aad u muhiim u ahaa ilaa asaaskoodii xukuumaddan iyo xildhibaanadan inay ku doodaya inay ka saaraan dalka Mareykanka marka suuragal maaha in dawladdu ay ku degdegto Mareykanka in la saaro oo haddii xagga raacdo ama go'aanka ay qaadato waxay noqonaysaa inay weydo garabkii caalamka oo dhan inay weydo because Mareykanku kaligii maaha wuxuu hormood ka yahay dalalka ka taageeray arrimaha gagixisada dhaqaalaha siyaasadda iyo doorashooyinka dhammaan dalka Ciraaq haddii dadkan ay isku ka soo jeedaan madhabta shiicada oo hadday raacaan iyaguna Allahumma salli ala laba daran mid dooray ku jiraan marka bal waxaan eegi doonaa siday sameeyaan xukuumadda Ciraaq laakiin saan ugu malaynayo aan filayana suuragal noqon mayso dowladda Ciraaq inay ka saarto ciidamada Mareykanka iyadoo waqtigana ISIS ay dib u soo noolaaso sida sheegaysa cilmi baadhista imika ugu dambeeyay la sameeyay dib ay isku abaabulayaan ISIS-na suuragal maaha inay tallaabo ka qaadi karto marka waxay noqonaysaa baliyada lafteedu inay qayb ka noqoto isku soo dhaweynta iyo xalinta khilaafaadka u dhaxeeya labadan quwadood ee ku tirdamaya dalka Ciraaq laftigeeda kaasi wuxuu ahaa Mustafa Maxamuud Cabdilaahi Al-Khaliili oo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramayey haddaba qalalaasaha bariga dhexe ka abuurmay raad ma ku yeelanaya isu socodka saliidda dunida iyo qiimaheeda labadaba su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere weydiiyey profeser xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ها محمد waa ku yeeshay oo dee magaranaysaa dilidii la dilay ninkii Qaasim Sulaymaan ee ay dileen ciidamada Mareykanku markii uu horeeyay baa dadku adduunku wuxuu fasirtay inay u xoog leedhayaan waa kuwii magaranaysaa Iiraaniyiintuna dhaartay ee dhaarta Mareykan ay argoosanayaan waa kuwii dadkii markii la aasay xataa 50 qof dadka badan ay ku dhinteen magaranaysaa aaskii ku dhinteen dad badan markaa waxa la filayay in uu dabcan arrimo xoog ka dhacdo waxna way ka dhaceen oo qiimaha badroolku wuxuu kor u kacay markiiba dhowr maalmood ina dhaafay 5 maalmood hadda laga joogaa wuxuu magaranaysaa kor u dhaafay 10% ayuu kor u kacay markii hore saamiyada adduunka wax lagu gataana 2% ayay hoos u dhaceen oo uu saameeyay adduunka laakiin si aad ogtahay shalay wuxuu caadi buu ku soo noqday markii weerarkii la filayay ee Iiraaniyiintu uu noqday dhowr iyo 10 madfac oo ay ku tuureen meel saldhigga la yidhaahdo Cayn al-Asad ee Mareykanka iyo mid kale ay ku tuureen oo dhaawac u geystay laakiin dhaawacii la filayay aanu gaarsiinin Mareykanku candhuuta dib u laqay oo wuxuu muujiyay inaanu ka argoosanaynin iyaguna Iiraaniyiintuna waxay yidhahdeen haddii aan lana soo faragelinin intaas ayaa ku filan taasi waxay keentay in shalay markaa qiimihii batroolku hoos u dhaco oo uu wax ku dhow wixii uu kacay uu hoos u dhaco saamiyadiina ay kor u soo kacaan laakiin ma dhammaanin xaaladdu ma dhammaanin waan gartay haddaynu si guud u eegno dalka Iiraan wuxuu ku yaalaa meesha ay saliidda caalamku soo marto waxaa la yidhi iyada iyo Cumaan waddo yaroo u dhaxaysa ayaa saliidda caalamku soo martaa bal markaa sharaxaad naga sii deegaankaas sax weeye waa runta oo waa meesha laga hadlayaa waa gacanka loo yaqaano Hormuz ama Strait of Hormuz la yiraahdo waa meel isku xidha ma garanaysaa dhinaca badda yar balaceeduba uu yahayba 22 mayl waxa la yiraahdo ama ilaa 34 kilomitir uu yahay isagoo dhanba marka haddii ay isku dayaan Iiraaniyiintu oo dhinac ka ah hadday isku dayaan in arrintaa xidhaan waxa joogsanaya
21% saliidda marta ee saliidda adduunka laga isticmaalo oo lagu qiyaaso 100 milyan oo fuusto maalintii 20 milyan oo ka mid ah ayaa meesha ka baxaya haddii arrintaasi ay dhacdo. marka aad arrinta laga baqayay ee qiimuhu kor u kacaya fartana lagu hayaa waa taa weeyi. marka su-aashu waxay noqonaysaa sidee bay adduunka u saameynaysaa, sidee bay Maraykan u saameynaysaa, sidee bay iyaa ka faa'iidaysanaya, yaase khasaaraya ayay su-aasha ugu weyni ay noqonaysaa. waan gartay. marka waxaa la yidhi Maraykanka hadda waa kaalinta koowaad dhinaca soo saarka iyo dhoofinta saliidda caalamka. miyuus hubaayo saliiddii halkaa maraysay waxba uguma baahna, saad sheegtay yaa faa'iidaya khasaara la yidhi waayo dadka khasaaraya ugu badan waddamada khasaaraya ugu badan haddii qulqulatooyin ay ka dhacaan marinkaasi Hormuz. sax weeye maxamedow, waa runtaa weeye oo Maraykanku waddamada wuxuu ku jiraa hadda dee saliidda soo saara oo iminka intuu soo dhoofinayo intuu dhoofiyo intuu soo dejiyo waxa badan baba inta uu dhoofiyo ayaa badan oo waa kuwa saliid ka hele meelahan saliidda cidhiidhiga ay yidhaahdaan oo meelo marka hore aan awood loo lahayn laga soo saaraba hadda teknolojiyadda waxay keenteen wax laga soo saari karo. laakiin marka isaga kambaniyada Maraykanku runtii waaba yar jeclaan lahay inuu qoomihu kor u kaco oo inkastoo shacabka ay dhibi doonto haddana iyagu way jeclaan lahaayeen inuu xukun waxbaaba u kordhi lahaaba iyaga. waddamada kale wuxuu kordhi lahaayeen waxaa ka mid a Canada iyo Dalyaal baa ka mid a waxaa ka mid a oo si xoog la uga faa'iidaya haddii arrintan ay socoto waddanka la yidhaahdo Ruushka ayaa aada uga faa'iidaya. waddanka Ruushka wuxuu uga faa'iidayaa weliba saliidda Maraykanka laga soo saaraa ma bedelayso saliidda laga soo saaro carabta, ma bedelaysa cayliin oo isku nooc maaha. marka warshadaha hadda samaysana waxay sifeeyaan warshadaha batroolka laga keeno gacanka cadmeed ayay keenaan. taa waxaa soo saara marka waa Ruushka. marka Ruushku wuxuu ku dari karaa ilaa 500 kun oo foosto ayuu maalintii ku dari karaa intuu soo saaro hadda. marka isaga faa'iido ayay u noqonaysaa. Canada laftigeedu wuxuuga faa'iido ayay u yar noqonaysaa. laakiin mid kale aan ku daro walaal maxamed oo ah cidda arrintan xasaradan aada uga faa'iidaysaa waa waddankaas Shiinaha. waayo Maraykanku hadda wuxuu lumiyey laba dadkii uu gacanta ugu jiri jiray ee ka mid ahaayeen Ciraaq wuu lumiyey oo maalintii dhowday marka ha naga baxay lahaayeen Ciraaqiintu waxay isku halaynayaan waa Shiinaha oo hadda baacimshirga uu la leeyahay ay gaadhay $30 bilyan ay gaadhay sanadkii, isla markaana hadda durba geliyey $20 bilyan geliyey inuu warshado batrooliya ku dhiso una ballan qaaday maalin dhaweed doraad ay kala saxeexdeen in ma garanaysaa saliiddooda uu kaga bedesho waxa uu dhisayo oo aanu lacag gaara weydiinin. sidaa darteed cidda runtii luminaysaa awooddii ay bariga dhexe ku lahayd waxa weeya Maraykanka. waad arkaysa wuu isgaabiye xitaa Sacuudigu oo arrintan markii ay dhacday kumuu faanfaanin markii Maraykanka loo geystay ma garanaysaa. waayo hadda way og yihiin in Maraykanku maadaama uu wax soo saarkiisu batay inuu xogaa dabada jeediyey ayay og yihiin. marka cidda ka faa'iidaysa arrintan waxay noqon doontaa waddanka Shiinaha oo aada u dhexgala bariga dhexe iyo waddanka Ruushka oo saliiddiisii ay suuq hesho. labadaasi aada uga faa'iidaya. hadalkaasina waxaa u dambeeyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. maxamed cabdi sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.